uhiili naftaada mararka qaar jihada yoolkaagu ma kaa luntaa waxaad qabatana ma garan weydaa warwarkaagu joogta ma noqdaa noloshu dhadhan ma kuu samayn weydaa ma hiiftaa dadka kugu xeeran noloshu ma kula fool xumaataa qalbiga ma ka oydaa ma dareentaa cabsi badan haddii ay jawaabtaadu tahay haa afartan qodob mid ayuunbaad ku sugan tahay ogow xidhiidhkaad ilaahay la lahayd oo aad goysay salaadii oo aad ka tagtay dunuubo waaweyn oo aad ku dhacday iyo dhammaan khayrkii oo aad ka durugtay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa inoo ballan qaaday inuu nolol ciidhiya ku noolaanayo qofka ka fogaada xuska rabbigii cadaabna mutaysan doono qofka xuska rabbigii badiyaana uu nolol rajo iyo raaxo leh ku noolaanayo aakhirana jannada gelayo xidhiidhkii aad naftaada la lahayd oo yaraaday ama joogsaday sida lafaqii iyo fadhiisigii naftaada taasoo kuu saamaxaysay inaad ka warhayso naftaada oo aad ogaato waxay doonayso iyo waxay diidayso dood wadaagna yeelataan taasoo fududaynaysa inaad isla jaan qaadaan oo aad waxyaabo badan xalisaan weydiimo badanna warcelin u heshaan taas oo sababaysa inaadan xisaabin naftaada iyo noloshaadaba waxaad daysaaba way ku daayaan carqaladaha noloshaada oo aanad xalin tani waxay kugu keenaysaa inaad ku jirto xaalad qarsoon oo soo noqnoqota iyo guuldarrooyin hor leh kuwaas oo saamayn taban ku yeesha noloshaada fahan la'aanta noloshaada inaad fahanto ood falanqayso waxna ka barato noloshaada waxay ku siinaysaa awood fikradeed kalsooni iyo kor u socosho haddii aad fahmi weydo noloshaada waxna ka baran maysid carqaladahaaga heerna gaadhi maysid abidkaa